Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada xubintii qisooyinka. Waxaan kusoo qaadan doonaa qiso diini ah. Waa aabe gabadhiisa ku dhahaysa, aabe Allah ka cabso. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiray nin ka mid ah raggii uu Ilaahay siiyey lacag. Nin taajir ayuu ahaa. Ilaahay baa siiyey nimcooyin badan. Aan u dhaafay qisadan ninkii ku dhacday sheekadiisa. Waxa uu ku dhahay, waxaan ahaa mid la saaxiib ah dadka xunxun. Asxaab jidka alla ka lexday ayaa la saaxiib ahaa. Ehelkaygiina iguma ogeyn wax xumaato ah oo xaggooda. Marka la joogo waxaan u muuqday nin ahlu diin ah oo wanaagsan. Ilaahay baa igu irsaaqay xaas wanaagsan, saalixad ah, kuna fiican diinta, ahlu salaad ah, kuna dhagan sunnadii Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Waxaana ku helay zawjadani wanaagsan sababtoo ah dadka hortooda waxaan ugu muuqday nin wanaagsan oo garka sii daystay, mar walibana caday wata oo hadal badnayn. Qofkii arko oo isdhahayo ninkani waa sheekh ama nin saalixa daahirkiisa, laakiin ma oga inaan weligay u sujuudin rabbigay oo aan salaad u istaagin, oo xitaa bisha ramadaanka aanan soomin. Intaas waxaa ku dheer, waxaa habeenkii isla soo baashaali jirnay asxaabteyda oo iyaga aan la socon jiray mar waliba. Habeenkii asxaabtaasna waxay ahaayeen kuwo xunxun. Mana jirto habeen aan banaanka isku raacno asxaabteyda ilaa rabbi aan ku caasino oo xumaan la imaano. Habeenada ka mid ah waxaa i soo wacay asxaabteydii oo ay dhaheen, hebelow maxaa kugu dhacay? Caawa mana raacaysid miya? Waxaan ugu jawaabay, maya, caaway idinma raaci karo, ma awoodo. Waxay ugu dhaheen, okay, haddii aadan la raaci karin, haddaba caaway saan kuguma daynayno ilaa aan xaafadda kugu keenno CD, halkaaga ku baashaal. Markii ay seexdaan xaaskaaga iyo gabadhaada yar. Ilaahay ayaa i siiyey gabar yar oo 7 jir ah, waxayna ahayd mid xafiday qur-aanka iyo adkaarta subaxii iyo habeenkii. Xaaskayga khayr Allah siiyey waxay gabadheeda ku barbaarisay, bartayna sida salaada loo tukado, loo soomo, qur-aanka iyo adkaarta aad bay ugu dadaashay. Aan qisada dib ugu laabtay, asxaabteydii CD-ga way keeneen habeenada ka mid ah. Markii aan hubsaday xaaskeyda iyo gabadheyda in ay seexdeen, qolka fadhiga ayaan aaday si aan u daawado filimaantii xumaa ee ku duubnaa fiidiyoga. Xilligaasna saacaddu waxa ay ku beedneed 8 saac oo habeenimo. Kadib habeen barkii waxaana daawanayay filimaan xunxun oo uu qofka awoodin inuu daawado dadka hortooda. Filimaanta xitaa dadka xunxun hortooda laguma daawan karin. Xoogaa markii ay meel xun ay maraysay ayaa irida la soo furay. Waxaana ka soo galay albaabka oo soo furay gabadheydii yareed. Maanan ka filaynin inay gabadheeda xilligan soo kacayso. Maanan ka filaynin inay soo galayso albaabka ayadoo aan i weydiisanin. Sababtoo ah waxay ahayd gabar lagu soo barbaariyey aadaab wanaagsan. Laakiin waxaan isdhahay, waxay aragtay furaha qolka oo meel is yaalo. Waxayna isdhahday, aabe fuliyaashiisa wuu ilooway ee qolka u soo xir. Markii ay soo gashay waxay indhaheedu qabteen TV-ga iyo xumaantii aan daawanayay. Durbadiiba waxay ugu dhahday, aabe Allah ka cabso, aabe Allah ka cabso, aabe Allihii ku abuurtay ka baq. Markii aan maqlay codkii gabadheydii ayaa hal mar soo booday. Dhidid weyn ayaa iga imaaday. Aad baan u naxay sababtoo ah gabadheyda iyo xaaskeyda agtooda waxaan ka ahaa aabbo wanaagsan, zawj saalixa dhankooda ayaan ka ahaa. Waan gariiray. Waxa aan sameeyo baan aqoon waayey. Shaydaanka ayaa sawiro ii keenay. Bes waaye, hadda ayay gabadhaada u sheegaysaa xaaskaagi. Bes waaye, waa ceebowday ayuu igu akhriyey. Waxaan sameeyo ayaan aqoon waayey. Ehelkayga hadday ogaadaan sheekada waan fadeexoobayaa. Ma awoodin inaan kursi ka kaco naxdin darteed. Waan danshay TV-gii, cajalkiina waan ka bixiyey. Markii aan albaabka furay ayaan dhahay, yaa rabbi ceebteeda astur, yaa Allah ceebteeda astur. Qolka markaan ka soo baxay wax dhaqdhaqaaq iyo shanqar maanan maqlin oo gabadheyda hooyadeeda maysan kicin. Waxaan isdhahay, gabadhaadu waa gabar edeb leh, hooyadeyda beri ayay u sheegi doontaa wixii dhacay.
subxaana allah, yaa rabbi allow ceebteeda astur, allow ceebteeda astur. meeshii ayaan sujuud la dhacay oo dhahay yaa rabbi i astur, yaa rabbi ceebteeda astur. waan soo qabaystay, 2 ragcadood ayaan dugtay, waan ducaystay inuu alle i asturo. markii aan salaada ka baxay oo aan cabbaar fadhiyey, waxaan maqlay cod dhawaaqaya, misena waa aadaankii fajarka ama salaada subax. waan baxay si salaada masjidka aan ugu soo dugto, waana markii ugu horeysay ee aan masjidka ku soo dugto salaada. intii aan masjidka usii socday, waxaan ka welwelsanaa sida ay beri arrinta noqon doonto oo gabadhii ay u sheegi doonto hooyadeeda. masjidkii ayaan soo galay, salaadii ayadoo la tukanayo ayaa imaamkii waxa uu akhriyey aayadaan isdhahay adiga ayaa lagu akhrinayaa. waxayna ahayd aayaddaasi: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. miyaanan u dhowaanin kuwa xaqa rumeeyey inay ku khushuucdo quluubtooda xusida eebe iyo waxa xaqa ah ee degi, oo aynan la mid noqon kuwii kitaabka la siiyey oo muddo ku dheeraatay, markaas oo ay engegtay quluubtooda. wax badan oo ayaga ka mid ahna waa faasiqiin. oohin aad u daran ayaan ooyey anigoo ku ducaysanaya sujuudda, yaa rabbi astur, yaa rabbi astur. salaada subax markii laga baxay, gaarigayga ayaan qaatay, gurigana kumana laaban oo shaqadii ayaan si toosa u aaday. waan ka xishooday inaan guriga aado oo wejiga gabadhayda aan arko ama aan la kulmo xaaskayga oo arrinta ogaatay. shaqadii ayaan aaday. marka xafiiskii aan gaaray, waxaa i soo galay asxaabteydii xumaa, iyagoo i leh maantay waa soo dhaqsatay, shaqada xilli hore ayaa soo gashay. waxaan ku dhahay iga leexda, hadal ma rabo. waan istaagay, waan soo weesaystay, 2 ragcadood oo salaatu duxa ayaan tukaday. salaada kadib shaqadeeda ayaan iska watay. haddana salaadii duhur ayaa la gaaray, waan aaday oo jamaaco ayaan ku soo dugtay. waxaan dareemay raaxo iyo firfircooni aan hore u dareemin. waqtigii shaqada laga baxayay markii la gaaray, welwel ayaan dareemay. waxaan garan waayey wejigii aan kuuga hortagi lahaa gabadhayda iyo xaaskayga. gaarigii ayaan soo qaatay. gurigaygii markii aan soo gaaray, waxaan arkay xaaskayga oo bannaanka fadhida. waxaan isdhidhi bes maanta waa ay kuu dhammaatay, bes waaye maanta waa ay kuu dhammaatay. niyadda ayaan ducada ka sii waday, yaa rabbi i astur. gaarigayga markii aan ka soo degaday, waan salaamay, waxaana ku salaamay salaanta islaamka: assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wayna igu jawaabtay: wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh, ninkaygii wanaagsanaayow. hadalkaasi markii ay dhahday bes hal mar ayay kugu qaylinaysaa ayaa maskaxdayda ka guuxay. madaxayga hoos ayaan u fooraariyey. waxay igu dhahday: ninkaygiiyow, deriska alaab ay leeyihiin haddii aad soo qaato oo ay ku dhahaan noo soo celi, miyaad ka diidaysaa? waxaan ugu jawaabay maya. waxay igu dhahday: samir iyo iimaan allah kaa siiyo, gabadhaadii saaka ayay geeriyootay. hadalkaa markii ay xaaskayga igu tidhi, indhahayga ilin ayaa soo guux dhaafiyey, sababtoo ah waxaan ku soo xasuustay ducadii aan sujuudda ku ducaysanayay oo ahayd: rabbiyow i astur, rabbiyow i astur. asturaadayda jawaabtaydu waxay noqotay inaan waayo gabadhii aan keligeeda dhalay, ayadoo aan hooyadeeda u sheegin wixii dhacay. allah ayaa ila doonay asturaad. aad baan u ooyey ilaa ay sajadeeda iga dhahdo: waxaan kuga aqoonay wanaagga iyo sabirka ee sabir. iyada ma oga sababtaan u oynayo, ma oga sababtaan ilintaas zaa'idka ay indhahayga igu imaanayso. niyadda ayaan ka dhahay: yaa rabbi, jidkaas toosan ayaan qaadayaa,
waan toobadkeenayaa, wejigayga waa nuuraa, acmaashaada wanaagsan ayaan ku dadaalaa, si hadday gabadheedii aragto maalinta qiyaamo ay ugu faraxdo, ayna u aragto wax farxad geliya, aysan u arkin maalinta qiyaamo wax murugo geliya. hadda waan toobad keenay, waddadii toosneed ayaan qaaday, hanuun ayaan raadshay. waxaa intaasi dheer, waxaan la baxaa sadaqada, zawjadeeda mar waliba ay aragto gacanta ayay iga dhunkataa, aniguna niyadda waxaan ka dhahaa allah baa og. fiiro gaar ah, dadka hortooda wanaaga lagu muujiyo, markii la keliyoobana xumaan oo idinla sameeyo waxaa ka dhasha ciqaab iyo qaatimo xumo. allah aan ka baqno oo sirteena inta muuqata iyo inta qarsoonba isku mid aan ka dhigno, acmaasha wanaagsan aan ku dadaalno iyo ducada, sadaqadana aan bixino. walaalayaal mahadsanidin, qisadana waa naga intaa. حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بين